ammaaniyo aadaa wanaag naga mudan macallin 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 adaa mugdigii u iftiishay aqoon adaa mugdigii adaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ardayda iskuullada Ilays, gaar ahaan waxaan u salaamayaa ardayda dhigatay iskuulka Geerasho oo Aadan Primary School. maanta halkan waxaan ku diyaariyey 10 galaas 7 ah oo aan ku sii deynayo maqal iyo muuqaal, waana maalintii ugu horeysay ee aan bilaabno habkan casriga ah ee maalmahan dambe lagu waday. markaa waxaanu samaynaynaa sidii galaaska markaynu ku jirnay ayaad ila haysanaysaan, halkaasaynu ka wada soconaynaa. arday walba waxaad ku mashquulsan tahay waad iska dhigaysaa, casharka ayaad xoogga saaraysaa iyo diiradda. sidii aynu la wada soconnayba fasax baynu in muddaa ku jirnay. fasaxeennii ardaydu dee ismay dhigan oo way dadaashay, xilli xun baanu ku soo beegmay oo aafooyinkaa dunida ka dhacaya iyo waxyaabahaasaa curyaamiyey. ilaahayna hayna hareer mariyo. maanta haddaba aanu gadagalo casharkeenna iyo muraadka aanu halkan fasalka 7aad ayaanu ka bilaabaynaa. waa 2 fasal, waa hablaas 7B iyo 7A. cutubka afraad ayaad marayseen markii suugeen dambeysay. wuxuu cutubka afraad ka koobnaa geeraarka. geeraarka markaa aynu maraynay wuxuu ahaa geeraarka la yidhaahdo Bermuda. Bermuda 1 ayaanu soo dhammaynay. Bermuda 1 muxuu ka hadlayay? Bermuda 1 waxa uu ka hadlayay xanuunka la yiraahdo AIDS-ka ee dunida aafeeyay ayuu ka hadlay. geeraarkan sideedaba waxa tiriyay abwaanka weyn, waa abwaanadan da'da yar waa abwaanadan dambe Saciid Maxamuud Gahayr Hargeysaawi ayuu ku magac dheer yahay. 2005 buu tiriyay. waa 2 geeraar oo silsilada. kii hore waynu soo dhiganay wuxuu u bixiyay magaca Bermuda. magaca Bermuda sababtoo u soo qaatayna waynu ka faaloon. Bermuda sida aynu wada ogsoonahay waxa weeye bad, waa badda saddexagalka ah. baddaasoo hool gun dheer god weeyaan biyo ku shubmayaan. markaa waxaa la yidhahdaa wixii dul mara lama arko, wixii u dhowaadana lama arko, wixii galaana kama soo noqdaan. sidaa la ajligeed ayuu u soo qaatay magaca oo xanuunkan AIDS-ka ayuu barbar dhinac dhigayaa ama u ekaysiinayaa Bermuda, waayo xanuunkan AIDS-ku dawo ma laha. qaybtaa hore haddaba haddaynu ku noqono si ay isugu xidhmaan 2 cashar, ilaa waa 2 cashar oo wax ka dhaxeeyaan. waa qaybtii 2aad iyo qaybtii 1aad. waxaan ku yaro noqonaynaa balkii hore waxyaabihii uu kaga hadlayay ee wacyigelinta ahaa. kii hore wuxuu kaga hadlayay abwaanku xanuunka waxyaabo fara badan oo u ekaysiiyey, sida Bermuda, sida aafooyinka dabiiciga ah, sida hubka dadka gumaada, sida bahalaha dadqaadka ah oo libaaxu ka mid yahay. markaa wuxuu leeyahay xanuunku waa libaax oo kale, sidaad libaaxa uga cararto xanuunkana uga carar. intaasuu inagu wacyigelinay. keenan haddaba iminka aynu soo gudubnay Bermudada 2aad maxay ka hadlaysaa? qaybta 2aad ee geeraarku waxa uu Saciid Maxamuud Gahayr Hargeysaawi. qaybtan 2aad ee geeraarka waxa uu Saciid Maxamuud Gahayr Hargeysaawi ku magac dheer. qofka reer Hargeysa magacan Hargeysaawi waxa loo bixiyaa qofka reer Hargeysa ee Hargeysa ku dhashay. markuu meelaha kala tago sida iminka Muqdisho kale metel ama Jabuuti, waa Hargeysaawi baa la oranayaa. sida inagu qofka xamar nooga yimaado aynu niraahno xamaraawi, ama qofka Jabuuti ka yimaado aynu niraahno Jabuutaawi. magaca halkaas markaa ka yimid wuxuu markaa inagu heega tusayaa geeraarkan in nafta laga xakameeyo, laga hor istaago. laaca marka hore macaanka weeg, marka la muudsanada qaraarka weeg, la muudsadana qaraarka weeg. erayga laac muxuu yahay haddaba? bal erayga laac baynu sir dul taagi doonaa. laac 2 midba uu noqdaa. erayga laac mar wuxuu noqdaa dhirta caleemaha cagaarka ah ee dhirta ee quruxda badan muuqooda ayuu noqonayaa, ee meel fog kaaga muuqanaya. dabeetana neefka geela ama xooluhu geela oo kala matalan markay arkaan laacaasoo geedkaasoo meel jara ka baxay oo caleemihiisu cagaar yihiin ayuu is yiraahdaa neefka geeli tiigso, jarkiina ma arkayo ka horeeya. dabeetana uu laacayaayo jarkii buu ka dhacaya. laandaaqa geeluba waa tii hore loo yidhi laandaaqa geeluba lebigii jarka u dhow intuu laacis leeyahay soo looli kama dhaco. looliguna de waa jarkii. laacuna waxa weeye muuqa dhirta ee cagaarka ayaa la yiraahdaa yaana idinka hoos bixin.
marka intani waa sarbeebe wuxuu u jeedaa dadku waa inay ka fogaadaan galmada xaaraanta ah iyo gogol dhaafka xaaraanta ah qofku markuu mas'uuliyad qaadi karo waa inuu inta hore isxakameeyaa oo dabar qabta yeeshaa inta uu mas'uuliyad qaadi karo waa inuu islaaliyaa intuu islaalin karayo oo bahalkaas sida libaaxa ugu carara aidiska iska ilaaliya dadkana ka wacyi-geliya waayo natiijada ugu dambaysa uu leeyahay waa geeri Soomaalidu waxa tiraahdaa saddex looma taagalo cudur geeri og gaajo guri og gardarro garab de qofka marka la baaro ee la yiraahdo cudur ku galaafanaya oo lafaha galaafanaya ayaa ku haya uu ka samreeyaa nolosha waay intaas waa hordhici haddaba balqaaradaha haddaynu ku noqono adduunka teebu ugu badan yahay qaaradda Afrika ayuu hadii jeer xanuunkani ugu badan yahay qaaraddaas uu farabaas ku haya waayo waa qaarad iska dayacan oo darxumo badan ay haysato dhaqaale badan aan lahayn siiba wuxuu ku sii badan yahay wadanka la yiraahdo South Africa ayuu aad ugu fidaa wadankeena uu ku yar yahay waayo dad muslimiin baynu nahay oo aan xaaraanta jeclayn wuxuu yiri markaa abwaanku geeraarkii baynu guda galeynaa imikee eray baynu sharixi doonaa markaa ila socda wax kale ha ku jeesanina waxyaabaha kale iyo hawsha kale aad haysaan iska dhiga rabbi baa baqdin weyn leh ilaahay baa laga cabsadaa bilay marka hore cabsida ilaahay buu naxasuusinay indha laga baqaa ilaahay bay ku yaalaan cid kale ka biqi waa baakoorad u heelan baakooradii uu ku metelaya markan xanuunkii oo wuxuu leeyahay waa baakoorad u heelan u diyaara heelan waa diyaar ah baqrakii iska dhaafee quraanka ilaahay suuradihii baqru soo qaatay baara wuxuu leeyahay ninka diintii iyo quraankii ka leexday ee meel kale u bayray ama meel kale luuq kale oo sagsaaga maray ee quraankii baara iyo ka tagay baqra baari waa suurada kawa suurada baabisanka quraanku jirta baara bismillah baa baari ay qaban weeyday labadaas suuradood baa ay dabr waayeen baarad weeye adoonka bisin aanu xidhaynin boolka bool u kidfaysa imikana wuxuu ku metelayaa baanada waa biraha isticmaalaan dareewaliinta iyo makaaniyadu marka ay ku xidhayaan boolka haddii aanay bisinka u qaban de waxa laga yaabaa inay baanadu jabto marka waxa weeye aduguna waxaan xaaraanta ah ee aan lagu banayn ee bilaa bisinka ah ee aad ku dhacayso hadhowto sida baanadaasi boolka u rifayso ayuu xanuunkuna ku rifaya oo ku kidfaya wuxuu u jeedaa ku rifaya bud weeyaan diyaara halkan wuxuu ku metelayaa meeriskanda bud weeyaan diyaara badraankii intuu qooqo wuxuu leeyahay waa bud loo diyaariyay badraan waxa la yiraahdaa ninka kibraaniga ah ee isqaadqaadka badan ayaa la yiraahdaa badraan marka wuxuu leeyahay ninka kibraaniga ah ee qooqay ee tunta ee aan isbanbaanin ee tunta ee meel walba iska gala ee lacagtiisa ku tunta khasaariya ee meelaha xun la baydha khayrka wala baydhin ee aan isbanbaanin aan isbasrin bando weeye la saaro waa bando ku dhacaya adduunyadii marka la yiraahdo xanuunkaas ku dhacay adduunyadii wax walba uu ka rajo dhigaya mugdi bay noloshiisu gelaysaa buu jeedaa abwaab basharkii ficil weecsan weligii ku bariintee binaadmigii buu leeyahay waxyaabo xun naftiisa bara ee la qabatima fuxshigaasna banaysta ee dambigaana xalaalaysta baadi gooba dunuubta isagu raadsadee cagihiisa ku doonta u boqola faliita ee falalka xun ee aan fiicnayn ee foosha xun u socdaala safar dheer buu gelaya wuxuu koodhaya halkan nololima taalo wadankeena Yurub iyo xaggaas ay nolol taala de wuxuu socdo waxa weeye uma socdo wax barasho uma socdo caafimaad muxuu leeyahay Yurub ay lacagtu taala halkaas wax waliba iska banaan yihiin oo khamrigiisa iyo wax walba aan laga celinayn marka cagihiisa ayuu ku doonanayaa falkan iyo dhibaatada ilaa uu qofku doonto ilaahay uma keeno balaayada hurdana la isma toosiyo boqole waxa weeye socodka duhurkii marka cadeedu kulushahay biladu weeye la siiyo qofkii bayni baxa baayaca jirkiisa ilaahay qofkaasi markuu xaaraantii ka bixi waayo fusqii iska deyn waayo wadooyinkiisa sagsaagga ahaa xumaaya laga mamnuucay uu maro ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa qofka oo biladu uga dhigaya xanuunka aidiska la yiraahdo marka uu yeesasturi waayo uu si xun u ilbaxo
cagtiisii meel walba ay ka qaban weydo dabarkii qaban waayo meel walba galo oo luuqa aakhirka waxa bilad looga dhigayaa oo la guddoonsiinayaa xanuunka weeyaan waana wax ilaahay looga maxay tahay laga magan galo abwaanka maxay ahayd culimada dhakhaatiirta way naga wacdiyeen gabaygan ama geeraarkana waxa weeye wacyigelintaas uu ka mid yahay sidaa ay tahay inaan ku qaadano oo aynu weelayno ayay noqonaysaa intaas sharaxaad dib ahay waxaanu samaynaynaa iminka haddaba gabaygii geeraarkii ayaanu yar dul maraynaa si aad erayada dhawaaqooda aad u fahantaan ila socda markaa wuxuu yidhi abwaanku rabbi baa baqdi weyn leh waa baakoorad u heelan baqra kii iska dhaafee baari ay qaban weydee baanad weeye addoonka bisina aanu u xidhaynin boolka bool u kidfaysa bud weeyaanu diyaara badraankii intuu qoobo tunta ee aan isbambaanin bandoo weeye la saaro basharkii ficil weecsan weligii ku barriintee fuxshigaasna bannaystee baadi gooba dunuubtee u boqolo falliita billad weeye la siiyo qofkii bayni baxa ah baayacaayo jidhkiisa qofkii aanay isasturin ee maryo wanaagsan xidha dee iminka matalan haddaan halkaa dhigo weel af bannaan duqsigii iyo wax waliba ku soo ururayaan iyo cayayaankii laakiin haddaan daboolo weelkaasi uu ka nabadgelayaa wax walba oo dhibaato gaadhsiinaya markaa waxa weeye qofka marka horeba fawaaxishta iyo dunuubta isagaa u yeedhanaya markaa in taxadir badan la sameeyo oo la iska ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliyee ayay noqonaysaa maanta halkaasaan kusoo gebagabeynaya casharkeenna intaasaan kusoo koobayaa cashar iyo cadba waa la yaraystaa baa la yidhi waxaynu isugu soo noqon doonnaa maalinta ku xigta haddii alla yidhaahdo iyo innagoo caafimaad qabna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markay adinkiyo ogadu hadlisa afkiyo istifaada